qofku meel buu ku gardaadaa ama meel buu dabcan uu ku barbaaraa kasako inuu warbaahin u yahay hoolkayga wuxuu ka mid yahay meelaha aniga suugaantaydu ay ku gardaaday ee ay ku hana qaadeen dabcan in badan oo idin ka mid laga yaabay inay iska soo gaadheen waxaan rabaa iyaga iyo maamulkoodana dabcan inaan uga mahad celiyo maxamed cabdilig agaasinku ugu horeeyo aad baa maasantay barnaamijkan dabcan dadka halabuurka ah ee dhalinta yar la tilmaamay inaan afkooda ku hadlo annaga hal fursad buu noo yahay halkaa fursada annaga uu noo yahay waxa weeyaan annaga suugaantu waa nalooga horeeyo dee soomaalidu intii ay jirtayba waa la soo gebiyey dhaxalbay markaa dadkaasu ka tageen siduu doonaba ha u ekaadee halabuurku fikirka uu ku kala duwanaan karaa abwaanada caawa halkan fadhiina waxaan doonayaa inay caddeeyaan inay soomaalinimada iyo somalilandnimadu ay aad u kala duwan tahay aad baan idinka codsanaya inay caddaysaan maadaama caawa ay abwaanadii joogaan waxay ka mid tahay moogtahay meelaha la yaro taataabta bay ka mid tahay bal abwaanadu inay somaliland u gabiyaan iyo somaliland inuu dalkoodii yahay laakiin qowmiyadda soomaalidoo dhan ay u gabiyaanna waxaan rabaa iyagana inay caawa caddeeyaan maadaama halabuurka oo dhami aniga iyo yaasiin madaaniye rag aanu ka mid nahay waxaa nagu yaro badan moogtahay marka iyagana caawa doonaya hal xidhaalaha haddii laha yidhaahdo inay furaan biidnillahi tacaala waanay furi doonaan qowmiyadnimadii soomaalida war anigu dee dunidoo dhan haddaan u gabiyi karayo wallaahi waan u gabiyi lahaa run baan idiin sheegaya oo maxaan idinka idinku falaya haddaan dunidoo dhan u gabiyi karayo idinku in yar baa noqonaysaanoo dhibaca drop dee laakiin dunidoo dhan isku afmanihiinoo dabcan uma gabiyi karayo haddaan dunida markaa ka soo yeera daadego waxaan isku dayi lahaa inta islaamka ayaanu diinta isku midnamidaysa inaan u gabiyo dee intii islaamka haydna niyo uma wada gabi karayo iyagaa iga badnaaba idinka wax badan ba idinkuma anfaleen kuwa ku xiga waxa weeyaan intaanu isku afka nahay af Soomaaligu uu namideeyay inaan u gabiyo ma waxaad doonaysaa kuwiina inaan ka sii daadego dabeetana ka soo hargeysa imaado deetana xaafadayda niyo hargeysa sii tago deetana ma yeeli karayo taa ma yeeli karayo marka abwaanadayna caawa taamarta uga nahay dabcan fursadaasaan doonayay inaan uga faa'iidaysano annagoo halabuurka ee dhalintayda dabcan waxay ka mid tahay caqabad baa laga warramaya ama duruufo nololeed halabuurka da'da yar dhibaatooyinka ugu roor ama ugu tunka waaweyn haysta waxaa ka mid ah Somalilandnimadii iyo Soomaalinimadii baa aad isugu milmay baa la moodaayo yaasiin madaalan dabcan xusuustaa wuxuu sameeyay maansa dheer oo la yiraahdo Muqdisho toddobaadkan ay wixii ninka ku dhacay anigu baa ogaa yaqaana la mid ah isagu hadda ugu reer Muqdisho afkooda ku gabiya waxay leeyihiin maxay hargeysa mid ugu soo wada Muqdisho ka doonto intaasay weydiinay marka halabuurkii baa fadhiyay iyaga ka jawaabi doona fursadaasaan doonaya caawa inay noo iba furaan mar labaad dabcan waa u mahadnaqaya halabuurka ka soo qayb galay iyo marti sharafta dabcan wuxuu tusaale u noqon doona inta badan waxa jooga iyaguna shirkadihii daabacada Cabdirasaaq baa jooga oo asala sidoo kale sagal jad baa jooga wixii loo oran jiray erey bixinta af Soomaaliga isaguna wuu sii socdaa maadaama abwaanadeena ay joogaan oo qoraayadeena ay joogaan oo waliba qoraayadeena dhalinta yaraayada uu ka mid yahay Cabdinaasir iyo Fucoodi ay joogaan oo akademiyadii oo Xamdaan arkaya ay joogaan waan af Soomaaliga inaynu inagu erey bixintii samaysanada cidna marti uga manihin qaamuusyadeena waa kuwan qalinkiina waynu haysanaa inaynu markaa nidhaahno af Soomaaliga baa jajaban oo printer gare iyo safe gare iyagoo maxaa ku dhaca qaamuuskeena joogay inaga dabcan ceeb inagu tahay booba Yuusuf Ducaale Hadraawi buu ka qoray adigu inaad yaasiin madaala ka qortada Soomaaliga hagaajisay cid ku diidaysa ma jirto marka inaad adigu naftaada aqoonsato inaga waliba inteena dhalinta yara aynu isku tashanay inagu dib isu eegno waa inaan odayaashan raqdaasi eegin inaan abwaan hebel iyo intii ka badnayd buu tageen marka ayaan iyagana doonay inaan fursada uga faa'iideysto mar labaad waa idin mahadnaqayaa barnaamijkana daba wuxuu noqon doonaa barnaamij aan rajaynay inuu ka faa'iideysto laakiin warbaahinteena Ducaale joogo wixii eray bixin loo baahdo dabcan isaga saxi lahaa marka inaynu inagu gudaha isugu noqono inagu is aqoonsano na fahanno inaan cid kale wax ka sugin ayaan ku gabagabeynaya aad baad u mahadsantahay Cabdi Shukri jazakallah